madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay soo dhamaatay socdaal shaqo oo kooban oo uu ku joogay wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo laabtay isagoo ay sido diyaaradda gaarka ah ee ku soo maamuseen xukuumadda Imaaraadku. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa si kaliya laaba ugu soo dhaweeyay gagada diyaaradaha ee magaalada Berbera mas'uuliyiin sarsare oo isugu jira wasiiro xildhibaano maamulka gobolka Saaxil iyo dadweyne kale oo tiro badan. markii uu soo caga dhigtay madaxweynuhu cariga Soomaaliland ayaa waxa lagu qaabilay muusiga astaanta qaranka halkaas oo ay salaan sharafna ku siiyeen cutub ka tirsan ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha warfidyaanada kula hadlay qolka nasashada ee madaarka Berbera ayaa tilmaamay muhiimadda safarka Imaaraadku u lahaa qaranka midhihii ka dhashay iyo maamuuskii lagu qaabilay wafdiga uu horkacayo. waa dalay saaxiibnahay xiriir badan inaga dhaxeeyo taariikh badan inaga dhaxayso markii nagu horeysayna ma aha halka madaxdii iyo mas'uuliyiintii waaweynada dalka ayaanu la kulannay umaradii iyo dadkii meesha xukumayay aad iyo si weyn lagu soo dhaweeyay. waxaanu ka wada hadalnay xiriirka labada dal ka dhaxeeya waxaanu ka wada hadalnay mucaawinka iyo waxyaabihii aan barigii hore aan tagnana lagu ballan qaaday wixii wadooyin la cusbitaal lahaa mashaariic kale biyo lahaa iyo wixii kale mashaariic laga furin lahaa mashaariicda waxa ka hirgeliyay way jiraan waxayna ballan qaadeen inay wixii hadhayna haddii cusbitaal yihiin iyo haddii wadooyin iyo haddii biyo yihiinba intaba ay furin doonaan xilkii waajibaadkooda ay ka soo bixi doonaan. waxayna noo ballan qaadeen inay mar walba taageero iyo muxuu ahay wanaag iyo la baal taagnaa doonaan Soomaaliland. gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna xusay muhiimadda safaradii kala dambeeyay ee Turkiga iyo Imaaraadka Carabtu ay u lahaayeen qaranka Soomaaliland halka Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiyana uu saxaafadda ugu baaqay in ay ka fogaadaan wararka aan runta ku salaysnayn isla marhaantaasina ay bulshada u gudbiyaan wararka xaqiiqada ku fadhiya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigan uu hogaaminayo 23 bishan gaaray dalka Isutaga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada xarunta u ah wadankaasi Abu Dhabi ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiinta dalkaasi waxaana si gooni ah ay isku hor fadhiisteen amiir kale dhaxalka Imaaraadka Carabta isla marhaantaasina ah taliye xigeenka ciidamada qalabka sida ee wadankaasi Sheekh Maxamed bin Said iyo wasiirka madaxtooyada dawladda Imaaraadka Sheekh Mansuur bin Said. maaha markii ugu horeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu safar ku tago dalka Isutaga Imaaraadka Carabta hase yeeshee waxa uu ahaa mid ku soo dhamaaday safgarasho waxaanu xididada u adkeeyay xiriirkii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Imaaraadka. Maasim Axmed Cawaale iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera.